bishii 12 ee sanadkii tagay barnaamijka jahayta dhalinyarada oo olole wacyigelin ah ayaa xaruntu u qabatay dhalinyaro kala gedisan oo ku nool degmada Baran. barnaamijkan oo isugu jiray xog ururin iyo kulamo la talin ah iyo waliba hadal jeedin ayaa ujeedadiisu ahayd in laga hortago dhibaatooyinka haysta dhalinyarada laguna jahayo noloshooda iyo waxqabadyadooda. xarunta hadaf muhiimadda ay ka leedahay ololahan waxa weeye kor u qaadida wacyiga dhalinyarada iyo waxqabadkooda. hadafka ugu weyn ee qofka dhalinyarada la rabo in uu yeesho loo xadiday wax weeye in uu ka fikiro sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu raali gelin lahaa. halkeena ugu dambeeya waa inuu noqdo adduunkeena inaan wax ka bedelno markaan rabno inaan madax noqono waxaan rabnaa madaxnimadeena inay noqoto madaxnimo togan oo dadka wax ka bedelaysa. si aadan dhalinyarada ka dambaysa moral jabin waa inaad fadhiga ka kacdaa ninkii jaamacadda soo dhameeyay wax soo bartayo waa inaad shaqo heshaa. sidee shaqo ku helaysaa? waa inaad shaqo adigu abuurtaa. waa inaad shaqo aad dadka u shaqaynaysid xirfadeeda la timaada. waa inaad xirfadahaaga aadan ku koobin hal xirfad. waa inaad naqataa qof xirfado fara badan leh oo marba miduu doono jeebka kala soo baxa. ilaa aynu qabyaalada ku bedelno qarannimo qaran beenayn hoos u dhacay oo waliba idinku waxay u baahan tahay dawladnimo soo arag anagu dawladnimada soo aragnay qabiil qarannimo ka dooro qoraygana qalin ka dooro qaadka qumanaan ka dooro khamriga khaatuma ka doono ka qayb qaado oo taageer barnaamijyada wacyigelinta bulshada ee xarunta hadaf. wixii faahfaahin nagala soo xiriir ciwaanada hoos ku qoran.